shirkan oo ahaa kii 15aad ee FIBA Africa ayaa dhawaan lagu soo gabagabeeyay magaalada Bamako ee wadanka Mali. shirkan oo ay ka soo qayb galeen 53 dawladood oo kamid ah wadamada Afrika ayaa 4 sanaba doorasho loo sameeyaa. haddaba Soomaaliya sanadkan waxa uga qayb galay xogayaha guud ee xiriirka kubadda koleyga Engineer Bana Cabdallah Ali, waana markii ugu horeysay tan iyo burburkii kadib shakhsi Soomaaliyeed mathalaya kursiga lagu arko. dhanka kalena waxaa sidoo kale ay wadamadu ay ugu warbixiyeen FIBA Africa 4 sano la soo dhaafay sida xiriirka kubadda koleyga uu ahaa iyo waxqabadkoodii. waxaa kaloo shirkan lagu dooranayay gudoomiyaha FIBA Africa, xogayaha guud ee FIBA Africa iyo dhammaan 7 gudoomiye. Professor Ellen Ekro isagoo ahaa gudoomiyihii FIBA Africa muddadii 12 sano la soo dhaafay ayaa iminka xilka ka degay, waxaana uu ku wareejiyay gudoomiyihii hore ee zoonka afraad Mabuse Ezeka oo hadda noqday gudoomiyaha cusub ee FIBA Africa. dhanka kalena Dr. Alvose Villa oo isagoo ahaa xogayihii hore ee FIBA Africa ayaa haddana dib loo doortay jagadiisii 4 sano soo socota. gudoomiyihii hore ee muddada 12 sano hayay xilka oo sanadkan doorashada laga helay si aad ah ugu hadlay kaalinta Soomaaliya ay kaga jirtay kubadda koleyga, waxaana uu ku amaanay in Soomaaliya ay ka mid ahayd wadamadii ugu wanaagsanaa ciyaaraha kubadda koleyga, isagoo waliba u mahad celiyay xogayaha xiriirka kubadda koleyga oo maanta kursiga Soomaaliya mathalaya halkan ka soo qayb galay. La Somalie devrait vraiment tout faire pour mettre en œuvre pour retrouver la famille de la FIBA. nasiib wanaag maadaama Soomaaliya ay kursigeedii dib ugu soo laabatay ayaa waxaa xogayaha guud ee xiriirka kubadda koleyga Soomaaliyeed loo doortay inuu noqdo gudoomiyaha suuqgeynta zoonka 5aad. isla markaana waxaa Engineer Bana uu noqday gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee FIBA Africa qaybta suuqgeynta. 20 sano ugu dambeeyay shir noocan oo kala ah Soomaaliya ma aysan ka qayb galin wadamada FIBA Africa ka tirsan. waxaa la cazumay 53 wadan oo markaa ay Soomaaliya ka mid ahayd wadamada Afrika. maadaama aniga aan ahay xogayaha guud ee xiriirka kubadda koleyga Soomaaliyeed, waxaan ka helnay cazumaad guul weyn waan ka soo gaarnay oo waxaa la doortay gudoomiyaha suuqgeynta wadamada East Africa ama sida loo yaqaan zone 5. waxaan kaloo noqday gudoomiye ku-xigeenka koowaad FIBA Africa qaybta marketingka. waxaan kaloo ka mid noqday boardka zone 5ka. runtii waa guulo aad iyo aad ummadda Soomaaliyeed ay soo hoysay, waana wax wanaagsan in shirka noocan oo kale ah in Soomaaliya maartay ama telno. marka waxaan rajeynayaa shirka dambena insha Allah inaan ka qayb gali doono guulo noocaas oo kale maartay mid aan ka gaari doono. ma ahan oo kaliya shirkan uu Engineer Bana ka qayb galay, sidoo kale waxa uu horay uga qayb galay shirkii ka dhacay Qaahira ee dalalka Carbeed oo Soomaaliya iyana markii ugu horeysay ay xubin ka noqotay xiriirka kubadda koleyga ee jaamacadda Carabta. ugu dambeynna madaxweynaha wadanka Mali General Amadou Touré ayaa isagu qada sharaf u sameeyay dhammaan xubnihii ka kala socday 53 dawladood, waxaana aad ugu mahad celiyay madaxda FIBA Africa oo iyagu go'aansaday inay shirkan halkan ku qabsadaan. shirkan FIBA Africa oo 4 sanaba mar la qabtaa ayaa sanadii 2006 waxaa lagu qabtay dalka Burkina Faso, iyadoo sanadkan 2010 bishan aynu ku jirno ee July iyana lagu qabtay dalka Mali. waana markii ugu horeysay oo shakhsi Soomaaliyeed uu mathala dawladda Soomaaliya isagoo kaga qayb galay xogayaha guud ee xiriirka kubadda koleyga Soomaaliyeed mudane Engineer Bana Ali oo isagu markii ugu horeysay uu ku fadhiisto kursiga Soomaaliya ee kubadda koleyga. Engineer Bana ayaa waxa uu sheegay inta uu xilkan hayo inuu si aad ah uga qayb gali doono shirarka ku saabsan kubadda koleyga. Ibrahim Umar Baafe, wararka Universal, London.